السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegaystayaal daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo casharkeennii chemistry-ga ee Foundation Chemistry 1 Chapter 2 chapterka labaad ayaynu bilaabaynaa maanta. casharkiisii koowaad wuxuuna ku saabsan yahay matter. fadlan dhegaysta intaadan u guda gelin casharka fadlan subscribe garay si aad u hesho xogta ama macluumaadka la soo geliyo channelkeena kororso aqoon. casharka koowaad ee chapterkeena labaad wuxuu ku saabsan yahay matter. What is matter? Matter maxaa la yidhaahdaa? Matter is anything which occupies space and has mass. Matter waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo buuxiya meel maran haddana leh culaysna leh. shay kasto oo meel maran buuxiya, meel maran markii la dhigo ama la gelsho buuxiya, culaysna leh haddii la miisaamo culaysna leh, matter baa la yidhaahdaa. walxaha oo dhan, kuwa nool ha noqdaan ama kuwa aan noolayn ha noqdaan, dhammaantood waa matter. matter oo noolayaal waxaa ka mid ah dadka, xayawaanada, dhirta, bakteeriyada, xitaa virusyada sida aidiska, coronaviruska oo kale, kulli waa matter. maxaa dhacay? waxay buuxiyaan meel maran bay buuxiyaan, waxayna leeyihiin mug bay leeyihiin. waxyaabo aan noolayn oo matter ah maxaa ka mid ah? dhagxaanta, biyaha, hawada, ayaguna waa matter. marka adigana keen kuwo kale oo matter ah. matter waxaad ku raadinaysaa wax alla wixii culays leh oo meel marana buuxin kara. waxaa jira wax la yidhaahdo antimatter, wax matterka anti ku ah ama lid ku ah. saynisyahanadu waxay aaminsan yihiin in uu jiro antimatter wax la yidhaahdo. antimatter maxaa la yidhahdaa? is the opposite of matter. waa waxa matterka ka soo horjeedaa la yidhahdaa. inuu jiray aaminsan yihiin, waxaana ay leeyihiin waxaa laga helaa outer space-ka, meesha maran ayaa laga helaa. haddii matter iyo antimatter ay isku dhacaan way isburburiyaan. marka shay matter ah, shay anti ku ah hadduu yimaado eber uu ka dhigayaa. labadaba waxa weeyaan marka ma jirayaan. beddelkoodii marka waxaa soo baxayo energy ayaa soo baxaya. halkan waxaan ka gelaynaa marka experiment, tijaabo oo qof walba fahmi karo. tijaabadaas waxay tahay oo lagu caddaynayo matterku inuu buuxiyo meel maran, inuu culaysna uu leeyahay. waxaad soo qaadanaysaa buu yidhi polythene bag, bac soo qaado, iyo dun, thread, dun soo qaado buu yidhi. bacdaas meel bay buuxinaysaa iyo duntu meel ay buuxinayaan, waa matter. culaysna way leeyihiin. ayagoo maran haddii la cabiro oo miisaan la saaro, culays ayay leeyihiin, haba yaraadeen. culayskooda meel ku qoro. bacdii aad soo qaadatay haddana hawo ka buuxi, duntana afka kaga xir, haddana mar kale miisaan. culayskii hore culays ka badan ayaad ku arkaysaa. marka hawadu inay tahay matter ayaa halkaa kaaga soo baxayso. sidoo kale isla bacdii soo qabo haddana dun iyo dun, miisaan ayaguna culays ay leeyihiin, meeshii la dhigana way buuxinayaan. haddana bacdii biyo ku shub, afka ka xir, ka bacdina miisaan, culayskii culays ka badan ayaad arkaysaa. marka biyaha iyo hawaduba waa matter. tijaabadaas intaasay caddaynaysaa. sababtuna waxay tahay waxay buuxiyeen meel maran
ay buuxiyeen culeysna way leeyihiin. The three states of matter ayaan halkan ka gelaynaa. Saddexda weji ee matterka uu leeyahay. maxaa dhacaya haddii biyo la dhigo qaybta ugu hooseysa ee frinjeerka haddii la gelsho? waxaa iska cad oo aan garanaynaa inuu adkaanayo, uu baraf noqonayo biyahaas. haddana haddii biyihii barafka noqday, haddii barafkii lasoo bixiyo, refrigeratorka laga soo bixiyo ama frinjeerka laga soo bixiyo, banaanka la keeno, maxaa dhacaya? waynu ognahay wuu dhalaalayaa, wuxuu noqonayaa biyihii ayuu noqonayaa. haddana haddii biyihii la kululeeyo, si xoogan loo kululeeyo, wuxuu isu bedelayaa biyihii uumi ayuu isu bedelayaa ama hawo ayuu isu bedelayaa, taasoo iyaduna ah gaas ah. marka halkaas waxaa nooga soo baxayo in waxa weeyaan walxaha ay leeyihiin wejiyaal kala duwan, waxayna ku xiran yihiin hadba heer kulkooda iyo cadaadiska hareerahooda ay ku xiran yihiin. intaa waxaa inooga soo baxday marka inay jiraan 3 weji oo waxa weeyaan matterku uu leeyahay. matterku ama shaygu ama walaxda adduunyada taala 3 weji mid uun bay noqonaysaa. solid adka inay noqoto, liquid dareere inay noqoto, and gas iyo hawo inay noqoto. solidka waxaynu ku soo fahnay waa biyihii refrigeratorka la gelshay ama frinjeerka la geliyey oo solidificationka sameeyey, adkaaday, isu bedelay ice baraf. liquid dareerana waxaan ku fahnay asaguna biyihii barafoobay, barafkii markii banaanka la keenay way dhalaaleen, melting bay sameeyeen. liquid waay, dareere waay isaguna. dareerihii markii la kululeeyey ama digsi markii biyo aynu ku shubno, aynu dabka saarno, heerkul fiicana la siiyo, waxa weeyaan biyihii way uumi baxayaan, waxay noqonayaan gaas. markaynu soo koobno, matterku 3daas weji ayuu ku imaanayaa: solid, adke, liquid, dareere, and gas iyo hawo. waxaa jira weji afraad oo la yidhaahdo plasma. wejiga afraad waxaa laga helayaa in the sun, qoraxda laga helaa, and in most stars iyo xidigaha badankooda laga dhex helaa. matterka marka oo plasmaha ah isagana wuxuu leeyahay astaamo oo solidka oo kale ah, dareeraha oo kale ah, hawada oo kale ah. waxaan halkan ka gelaynaa change of state, isbedelka wejiyada sida ay isu bedelayaan, oo ah adkihii iyo dareerihii iyo gaaskii waa la isku bedeli karaa. The 3 states of matter are interchangeable. 3da weji ee matterka uu leeyahay waa la isku bedeli karaa by heating or cooling. waad kululeyn kartaa ama waad qaboojin kartaa. adigoo adka haysta ayaa waxaad u bedeli kartaa dareere. adoo dareere haysta ayaa waxaad u bedeli kartaa neef ayaad u bedeli kartaa. adoo neef haysta ayaa waxaad u bedeli kartaa haddana dareere ayaad u bedeli kartaa. adoo dareere haysta ayaa adka ku soo celin kartaa. adoo adka haysta ayaad u bedeli kartaa haddana neef. sida la isugu bedelaan gelaynaa marka. When a solid is heated, it melts into a liquid. waa midka koowaad. adkahan soo qaadanaynaa. haddii adke la kululeeyo, wuu dhalaalayaa. shay adka ah markii la kululeeyo wuu dhalaalayaa, wuxuuna noqonayaa liquid, dareere ayuu noqonayaa. tusaale maalan subaga ka mid ah. subaga waa adke,
haddii waxa weeyaan la kululeeyo dabka la saaro ama qoraxda la dhigo wuu dhalaalayaa wuxuuna noqonayaa dareere markii hore wuxuu ahaa solid adke wuxuu isku bedelay liquid dareere ayuu isku bedelay when a liquid is heated it vaporizes to form a gas markii dareere la kululeeyo isaguna wuxuu sameynayaa marka wuu umi baxayaa wuxuuna noqonayaa neef ayuu noqonayaa tusaale keena marka dareere oo la kululeeyey oo neef noqday waa biyihi ka mid ah biyo soo qaado digsi ku shub dabka saar heerkul badanna sii kuleel aad u daran biyihii marka way umi baxayaan evaporation ku dhacayo umi bax waxay isu bedelayaan gas haway isu bedelayaan intaas waa fahanay waa solid oo loo bedelayo liquid oo loo bedelayo gas marka retardation baynu sameynaynaa gadaalan u soo celinaynaa marka gaaskan ka soo bilaabaynaa gaaskii waxaan ku soo celinaynaa liquidkiina waxaan ku soo celinaynaa solid when a gas is cooled it condenses into a liquid markii hawo la qaboojiyo hawadii markii la qaboojiyo it condenses hawadii waxa weeyaan uumi biyood bay sameynaysaa into a liquid dareere ay noqonaysaa tusaale hawo la qaboojiyey oo ay noqotay dareere maxaa ka mid ah kirli soo qaado ama jalmad soo qaado biyo ku shub dabka saar biyihii kirliga ku jireen waxay sameynayaan uumi bax bay sameynayaan markii uumi baxa ay sameeyaan afka kirliga ayaa waxaad ku xiraysaa maalan tubo aad ku xiraysaa kirliga afkiisii waxaa ka baxayo uumiyaa ka baxayo hawa ka baxayso oo kulul hawadii kulul waxay ku dhex qaboobaysaa tubadii afka kaga xirtay ayay ku dhex qaboobaysaa ka bacdi weel aad keenaysaa aa meesha dhigaysaa biyihii oo waxa weeyaan ka yimid hawadii oo qabowday ayaa waxay kugu dhacayaan weelkii ku dhacayaan waxaa la yidhahdaa kaas condensation aa lahaa uumi biyeyn baa la yidhaahdaa ama uumi biyood waa markii hawo la qaboojiyo oo isu bedesho dareere haddana waxa weeyaan liquid ayaan u bedelaynaa solid adke dareere ayaan haysanaa biyo adkaa laga dhigaa when a liquid is cooled it solidifies or freezes to form a solid markii adke la qaboojiyo tusaale waa biyihii markii la qaboojiyo frinjeerka la geliyo it solidifies wuu adkaanayaa marka or freezes ama wuu qaboobayaa muxuu sameynayaa to form a solid adkihii ayuu u noqonayaa u laabanayaa taana waynu fahanay waa biyo oo laga dhigayo adke waa biyihii oo laga dhigay barafkii weyn process waxaa jiro oo shanaad oo la yidhaahdo sublimation oo ah shay adka ah in loo bedelo gas hawo isagoo waxa weeyaan uusan marin processkii dhexda ahaa ee liquidka dareeraha some solids change into gas buu yiri adkayaasha qaar waxay isu bedelayaan gas directly si toos ah without going through the liquid state ayagoo aan marin xaaladda la yidhaahdo liquidka this is called sublimation ayaa loo yaqaanaa processkaas waxaa la yidhahdaa sublimation ayaa loo yaqaanaa oo ah walaxdu inay adka ka soo tagto oo ay gas u bedesho iyadoo aan liquid marin sawirka meesha ku yaallo aad u jeedaan wuxuu caddaynayaa siday isku bedelayaan solid waa adke falaadha raac liquid dareere ayaa loo bedelay processka loo maray waa kan melting waa dhalaalid ama dhalaalin liquid waa dareere waxaa loo bedelay gas hawo processka loo maro waa kan vaporization waa uumi bixin mar kale gadaal ka soo qabo hore u soo celi gas hawo aad haysataa waxaa loo bedelayaa liquid dareere ayaa loo bedelayaa processka loo isticmaaleen waxa weeyaan condensation waa uumi biyood ama uumi biyeyn ayaa loo isticmaalay liquid dareere ayaad haysataa solid adka ayaa loo bedelay
processka waxa weeyaan lagu isticmaalay waxa weeyaan oo loo isticmaalay waa freezing way qaboojin baa lagu sameeyay ka ugu dambeeya waa solid waa adke oo loo bedelayo gas shay adka ah ayaa hawo laga dhigaa ama neef laga dhigaa processka lagu sameeynaayana waa sublimation cagsigiisana waa jira oo gaaskii ayaa loo bedelaa solid processka lagu sameeynaayana waa sublimation intaas waxa weeyaan change of state-ka ayuu ku egyahay dhageystayaal daawadayaal casharkeeni halkaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa intii aynu ku kulmayno darsi la mid ah noocan oo kale ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh fadlan subscribe garay oo nagu dhiirigeli inaan hore u soconno